السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد aad ula dhaqanta carqaladahaaga waxay qeexaan noloshaada. qof kasta oo inaga mid ahi waxa uu la tacaalayaa carqalad haysata noloshiisa oo ka hortaagan waxyaabo badan oo uu qabsan lahaa, taas oo ay dad aaminsan yihiin in ay tahay wax aan xal loo heli karin ay iska samraan, taas oo ka lumisa awoodii fikir iyo ficil ay kaga taqallusi lahaayeen carqaladaasi haysata, iyaga oo ka laabta gacmahooda daawadana meesha ay u kaxaysa carqaladaasi aada. waxa kaliya ay tiigsadaan waxa uu noqdaa calaacal joogto ah iyo cudurdaar uu qofku ku xiro noloshiisa oo dhan. walaal, maad ilowday inay noloshu tahay imtixaan iyo shaqo, taas oo mararka qaarkood ah hal xidhaale ay kaga guuleysteen in yari. walaal, ogsoonow in carqaladu ka mid tahay sunnaha nolosha, waayo rusushii iyo nebiyadii naxariis iyo nabadgelyo korkooda ahaatee ilaahay subxaanahu wa tacaala soo diray waxay ahaayeen kuwo la kulma carqaladaha, kuwaasoo ka carqalado badnaa dadka ay la noolaayeen wakhtigoodii iyo kuwa maantaba. haddaba waxaan kuu soo gudbinayaa ama kula wadaagayaa 8 tallaabo oo aad kaga guulaysan karta carqalad kasta oo ku soo wajahda. haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta, hana ka iloobin subscribe, like, share. من استنار بدربه بالعلم نورا واتخذ التقى حللا ما كان يرفع مرءا. qodobka koobaad, u fiirsasho iyo falanqayn. inaad u fiirsato oo aad falanqayso carqalada ku haysataa waxay kuu sahli kartaa inaad si fiican ugu bogato dhibaatada iyo xagga ay ka timid. wax walba bilowga xalkiisu waa fahan. haddii aanad nolosha fahmin weligaa waad jahwaraysanaan. haddii aanad fahmin shay aad isticmaali lahaydna weligaa ka faa'iidaysan maysid. si aad wax u fahantaa waa in aad falanqaysaa oo aad baaritaan qoto dheer ah ku samaysaa. qodobka labaad, mar walba diiradda saar dhanka wanaagsan. iska ilow in aad ku mashquusho dhibaatada carqalada kuu horseeday, waayo taasi waxay kaa luminaysaa awooddii iyo kalsoonidii aad ku abbaari lahayd kagana taqallusi lahayd isla carqaladaas, waxna ka baran lahayd. mar kasta oo aad dhanka wanaagsan ee iftiinka leh wax ka eegto, horseed ayay u noqon kartaa niyad wanaag iyo inaad sii wadan karto halganka aad kula jirta carqalada noloshaada kugu xeeran. qodobka saddexaad, mar kasta rajo yeelo oo ha quusan. rajadu waa xanuun biyaha dhibta iyo walwalka nafsiga ah. mar kasta oo aad rajo leedahay waad ka muruga yar tahay marka kale. quustu waa albaabka ugu horeeya ee laga galo guuldarada iyo walwalka joogtada ah. rajadu waxay ku dhaxal siinaysaa inaad lahaato calool adayg si kasta oo ay xaaladdu u adag tahay. inaad quusataana ma ahan dhaqan wanaag, waayo ogow inuu alle subxaanahu wa tacaala ina faray inaan ka quusan raxmaddiisa. qodobka afaraad, bara xirfadaha xalinta khilaafaadka. inaad barato xirfadaani waxay kaa caawinaysaa inaad wajihi karto carqalad kasta oo ku soo wajahda, xalna u heli karto. aqoon inaad u lahaataa xirfadda noocaani oo kale ah waxay kaa caawin doontaa qaybo kala duwan oo noloshaada ka mid ah. qodobka shanaad, ka warqab naftaada. mar kasta oo aad kor u qaaddo ogaanshiyaha iyo ka warqabka naftaada, waxa aad u dhowdahay in aad kaga guulaysato carqalad kasta soo wajahda naftaada. dhibaatada ugu weyn ee aynu inta badan kala kulanno carqaladahu waa in ay hoos u dhigaan ka warqabka nafeed ee shakhsiga. qodobka lixaad, baro xirfado kala duwan. mar kasta oo aad kor u qaaddo heerkaada aqooneed ee aad kororsato cilmi, waxa aad ka gudubtay oo kaa go'ay dabar ka mid ah dabaradan jahliga. dunida aynu maanta joognaa waxa ugu weyn ee qofka lagu qiimeeyo waa xirfadaha uu yaqaano. sababta oo ah waxaa la ogyahay qofba qofka uu ka xirfado badan yahay inuu ka xalin og yahay dhibaatooyinka.
noloshiisana awood u leeyahay inuu maareeyo. Qodobka 7, dhiirigeli naftaada. Inaad dhiirigeliso naftaada waa shay aad ugu muhiim ah noloshaada iyo guulaha aad ka gaari karto. Naftaada oo aad dhiirigelisaa waxay kuu horseedi kartaa hanaan nololeed oo sax ah. Qodobka 8, samayso caawiye. Helidda shakhsi kaa waaya aragnimo iyo aqoon badan waxay kuu fududayn kartaa inaad ka gudubto carqaladahaaga. Qof ku caawiya oo ku siiya talooyin dhaxalgal ah wuxuu kuu fududayn karaa ka gudbidda carqaladda. Baadi doon oo ka agdhow dadka aad bidaysa inay noqon karaan kuwo awood u leh inay kula xaliyaan carqaladahaaga. Awoodda carqaladahaagu kama weynase adiga ayaa dooran kara in aad isku daciifiso oo aanad wax ka baran, dhulkana kula gasho oo ay adiga ku burburiso, noloshaadana baabi'iso, ama aad wax ka barato kuna dabaqdo noloshaada oo aad ka dhigto kaabihii figta sare aad ku gaari lahayd.